السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Seenab, waa gabadhii Dheermaarig laga keenay ee Burco la keenay ee 9 sanadood lagu silcinay Burco. Haanana aniga ayaa la hadlay, haanime aqoon waxaan ahay waxaan gudoonaya nool iyo in kale ma aqoon. Aniga ayaa haana la hadlay. Haana markaan la hadlay aniga carteeda la soo cararay, aniga kala in silcid raxmadi dad waxa la arki jiray dad cadow ka qaxa, anaga dadkii Ilaahayna badan ka qaxnay. wax wala waa qadar leh markaan ka qaxnay anaga nimi haani Soomaali weyn khayr Allah siiyo. waxaan naga soo urursan lacag $300 wayna soo dirtay. markay noo soo dirtayna markii nala siiyayna mariya iyo wax kasta ayaan u baahnay iyo cunno ayaan siisanay. anaga maasha Allah qurux badan, carruurtooda waxay hayeen qaar buka iyo qaar caafimaad qaba. sawirroodi markaan soo animina waa arki doontaan. imikana haddii la ka dhigo xilli kasta aan haana markaasaan soo imaanayna maasaan sawir ka soo duubana arki doontaan labada jeer. ma garatay marka Soomaali weynay ducadiini iyo sadaqadiini ayaanu ku fiicnaanay ana soo dirteen khayr Allah idin siiyo. gabadha haanana wayna caawisay jazaakallahu khayran. waxaan idin sheegayaa oo aan idin leeyahay dadkii soo hadlay shalay toole soo hadlayayna waa hooyada iyo walaalada ma aha cid kale. waxa kale idin sheegay Soomaali weynay in sadaqadiina aad soo dirsateen iyo ducadiini aad soo dirteen ayaan ku fiicnaana. khayr Allah idin siiyo idinka. hase yeeshee gabadhan haana waxba lama bixin kiyaan cid lama baxdo waa in caawisa bisiya sharaf bay leedahay. waxana cid uma geysatay dadka way caawisaa. marka dadka ay caawinayso u daayo u nabadgeliyo caayada iyo fadxada inta ka daayay aanay lahayn ee asaaraysa ka daayayna dad anigoo kala sidaas ay caawinaysa. hooyo Soomaali silcaysa ka soo saarsa qafay iyada ka yeedhisay rumarka laga hadlo 9 sanadood ku silcay ana soo dalbo la soo hadlay aniga ka iimaysh ka soo qaxay u telefoon kula hadla sadaqo Soomaali ka soo qurtay $300 ayay ii soo dirtay. meel baan degi waan ku baashaarna kadib haddana soo hadalna 1500 baan soo dirtay sadaqadii ducadiiniya. khayr Allah idin siiyo idinka ku mahadsantihiin. laakiin inta haana wanaag iyo sharaf iyo ciise bulshada Soomaaliyeed ku leedahay. ciise sharafna Ilaahay baa siiyay. ma garatay marka inantaas waa ina fiican in la qadariyo maamuus iyo sharaf loo sameeyo way in la caaya ma aha inantaan. khusuusaadkeeda iyo caruurteeda iyo ninkeeda iyo nolosheeda qofna la fargeliyo ma ogolo. waa ceeb weeye khusuusaadkeeda fargelisaan ma aha. waxana idin kama saarna waxay dhashay iyo waxa qaba waxba idin kama geeyin. khusuusaadkeedana u nabadgeliya. annagana wayna caawisa. imikana waxaan kula jirnaa anana la soo hadlay caawimada aniga la soo hadlay imay aqoonayaan jireen kale. waan ka soo qaxay meesha joogay aniga carruurtan ka soo qaxiyay. carruurtayda way nabad qabaan. waa 4 gabdhood oo wiil baan wataa. way fiicay ma sha Allah farxadda ku nool yihiin qurux mariya labisa ciisiyo wanaag iyo sharaf. ma ogaad waana sadaqada Soomaali wadaadta noo soo dirtay iyo ducadiini weeyaan noo soo ducayseen sadaqada soo dhiibteen intee noo soo dhiibtayadana oo $300 $1500 kala mar dambe noo soo dirta waan ku ciidna waan ku baashaana. Ilaahay khayr ha idin idinkan inanta ahaana laakiin khusuusadkeena inaan ka baxdaan baan rabaa. maxaan ku dhaday caydan inaan ka daysaan inanta saacay naga mudna in sharaf iyo wanaag ay naga mudanta. haddii nax kale u geysanaynin afkiina ka haysta ka daay ceerto cidna kale kala baxdo cidna ceeb dhawaato ma geysato. anaga sharaf iyo maamuus naga maato wata anaga na caawisay cid noo garanaysan ma jirto. anaga doonina ma aqoonay anaga la hadna ma aqoonay. isku cidna ma nihin isku qolna ma nihin. hada oran lahayd isku cid ku caawis ana gabadh Saaqa baan ahay Ciise Muuse baan ahay Xasan Maxamed baan ahay. Soomaali way barbarana waa ku kora meel looga bixin barbar halkaas aan ku koran ku weynaada. reerkiisa soo hadlayna hooyadii walaalada way haayeen. marka intaas aan u Soomaali weyn idin sheegaya khayr Allah idin siiyo. maantana waxaan gacanta ugu jirnaa meel safaarada waa nabad qabnaa. marka waan wanaagsan anagu waan salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.